Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu asxaabteena kuna soo dhawaada janalkeena ka xuruu faqriga. Maanta waxaa idin wadaa barnaamij ku saabsan xulbada, faa'iidooyinka u leedahay bini'aadanka iyo saameynta ay u geysan karto uurka. Xulbada waa dhir daawad waxtar badan u leh bini'aadanka, waxayna wax ka bedeli kartaa caafimaadka iyo nolosha. Halkii malqacad ee qaandada xulbada ah waxaa ku jirto nafaqooyin kala duwan sida kalooriin, carbohydrate, protein, fat, phosphorus, iron, energy iyo chlorine. Faa'iidooyinka ay u leedahay xulbada bini'aadanka. 1. Xulbada waxa ay kor u qaadaa caanaha qaadashada. 2. Xulbada waxa ay yareysaa kolestaroolka. 3. Xulbada waxa ay ka hortagtaa kansarka. 4. Xulbada waxa ay xanuun baabi'iye. 5. Waxay siyaadisaa caanaha naaska hooyada. Saameynta halista ah ay u leedahay uurka. Haddii aad uur leedahay, ha qaadanin xulbada. Waxay saameyn kartaa korriinka maskaxda uurku jirka. Waxay hoos u ridi kartaa sokorta. Waxay awood u leedahay in ay maroojiso minka, taasoo ay soo dedejinayso foosha. Halkaa waxaan ku soo afmeerayaa barnaamijkeeni xulbada. Faa'iidooyinka ay u leedahay bini'aadanka, halista uurka ay u leedahay iyo xulbada. Intaa ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkeeni ku saabsanaa xulbada. Inta barnaamij midkaan mid lacayna aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo amaano Allah. Hanaga ilaawina sheerta, commentiga iyo subscribe-ka. Waxa inoo tahay dhiirigelin.